Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin salaamayaa. Waxaa idinku salaamayaa salaanta muslimka. Waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa wiilkiini, waa walaalkiini. Maasha Allah, horta dhammaan saqiir kabiir waa salaamayaa. Bacdi salaan codkayga si fiican hadaad u maqli waysan ka raali noqda. Meel shaqaan goob shaqa ayaan joogaa. Bacdi salaan maanta waxa aniga isoo riixay ama iga soo hadalsiinayo aray laygu dhahay xalay toole. Nin caan ah social media ku jiro oo fanaan ah oo la yaqaano oo yacni magac iyo maamuus bulshada weynta ku dhex leh ayaa arigaasna igu dhahay. Magaciisna ma sheegi doono. Dabcan meeshan waad iga daawan doonaa ama wuu i arkayaa. Ninkii wax yar sheeko yar ayaana dhex martay. Wuu ii wacay. Haddoo ii wacay wuxuu igu dhahay see tahay waan fiicanahay. Markii salaanta aan kala dhamaanay ayuu wuxuu igu dhahay maanta shalay waxaad ahayd nin oo xafiisyada dhisa. Soomaali markaad joogtay waxaa samayn jirtay sariiraha, fadhiyada, adiga ayay shaqo yacni fuundinimo. Haddaad tihiin beesha jareer weynana waxaa idinku naqaanaa inaad fuundi tihiin, guryaha noo dhistaan, aad xamaali noo tihiin, aan idin adoonsano. Markaas waxaan ku dhahay nin aad u xun baa tahay, akhlaaq xun baa ka afkaaga wax xun baa ka soo baxaya. Sababtoo ah jareerta adoon kuma ahan, adiga ma adoonsanaysid. Jareerta kuma ahan yacni nin adiga la guri kuu dhisi jiray. Hadduu kuu dhisi jirin waa ninkaas shaqaysan jiray, lacagtiisa oo dhididkiisa ayuu cuni jiray, xoogiisa ayuu maalan jiray. Okay, markaas wuxuu igu dhahay hadda adiga fuundi aad ahaan jirta Cabdalla ah. Haddaad fuundi ahaan jirtay maanta fanaan baad iska dhigaysaa. Fanaana rabtaa inaad noqoto. Heesaha soo qaaday. Heesahaaga YouTube aad dhigatay. Waxaad rajeynaysaa inaad nin magac leh, caan ah ama yacni dunida laga aqoonsan yahay inaad noqoto. Laakiin ma noqonaysid oo igu dhahay. Markaas waxaan ku dhahay ma adaa iga celcelinaya mase social media ayaad iga celcelinaysaa. Markaasuu wuxuu igu jawaabay social media aniga ma celcelinaye. Ninka caan markuu noqonayo dadkiisa ama Soomaali weyn baa garab qabata. Khaasatan jareer caan maba noqonayo igu dhahay. Jareer caan maba noqonayo, horumar ma gaarayo, meel wanaagsan ma gaarayo. Sababtoo ah jareer ayaga xaasid isku ah, ayaga meel isgaarsiinin, ayaga magac isku yeelin, ayaga horumar isku yeelin. Yacni sababtoo ah like-ta iyo comment-ga subscribe-ka bulshada gacantooda ayay ku xiran tahay. Horumarkana yacni Ilaah waa xukmiya. Qof walba bini aadana jareer iyo jilaac Ilaahay uma kala qaado. Ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga wuxuu keenay jareer iyo jilaac. Maadaama Ilaahayna wada keenayna Ilaahay qabiilka ha laysku aqoonsado nagu dhahay. Naguma dhihin ha laysku gumaado ama ha laysku cusriyeeyo. Cusrinimadana waa xaraam. Ninkaas hadalkaas ayaana dhex maray. Sababtoo ah dagaal badan ayaana dhex maray, foodo badan ayaana dhex maray. Maadaama aniga jinsiga aan ka dhashay oo liiday oo asiga jinsigiisa oo kor ka dhigay, wuxuu igu dhahay hadda nin jilaaca YouTube ha sameysto ama hees ha soo qaado. Inta bisha aysan ka dhammaanin oo wuxuu noqonayaa meel aad u fog, horumar badan oo suubinaya, magacoo yeelanaya, meelo badanaa laga wacaya. Markaasuu wuxuu igu dhahay jareer social media waa ku jirtiin. TikTok xataa ma ka gaarin, maxaa la dhihi jiray, TikTok maadan ka gaarin milyan kama gaarin. Laakiin annaga gabdhaheena milyan ay gaaraan. Wuxuu ii soo qaatay gabdhaha hadda maanta Ilaahay gaarsiiyay social media milyanka gaaray Ilaahay gaarsiiyay oo ii soo qaatay. Markaas waxaan ku dhahay qof waliba maalintiisa ayuu gaarayaa. Jaranjarta sideedana iskaala weeyaan. Haddaad rabto inaad jaranjarta aad korto, carar looma baahno. Waayo maalin walba hal lug markaad mid saarto midka kalena waad gaaraysaa, waana helaysaa. Soomaali Maxamed ninkaasi araygaa xun igu dhahay. Idinka wax un ka soo dhigi doona, comment-ga idinka arki doonaa. Laakiin aniga dhibaato uma arkayo. Asiga waa nin rag, Ilaahay baa khalqigaan keenay. Anigana waa nin rag, Ilaahay khalqigaan i keenay. Hadduu maanta magac iyo maamuus leeyahay, Ilaaha gaarsiiyay. Idinkaa gaarsiiseen. Soomaali Maxamed gaarsiiyay oo qabiilba aan u kala macnayn. Jecel
iyo walaaltinimo iyo wanaag aad ku gaarsiiseen. maantana inuu yacni dhaho aniga jilaaca horumar i gaarsiisay, wallahi aad baan uga xumahay. adduunkana qabiilka waxba ma taro. jilaac waa dad Soomaaliyeed, jareerna waa dad Soomaaliyeed, waa dad gobol wada degaan wada yeesha, yacni nolol wada qaata, farxad wada qaata, oo waa dad isku diin ah, isku dal ah, isku dhaqan ah, isku jinsi ah. waxaan dhihi lahaa Soomaali Maxamed, dadka qabyaalada ku nool, qalbigiina Ilaahay ha soo hadiyeeyo, qalbigiinana Ilaahay ha soo wanaajiyo. sababtoo ah maalintaad dhimato aniga layma dhahayo ninkan jareer waaye qabri kale oo gooniha lagu soo duugo, ninkan jilaac waa qabrigaas quruxda badan hala dhigo, layma dhahayo. isku karfan baa nala xirayaa, isku iil baa nala wada dhigayaa, su-aal baa na wada maraya, hal meelaan u wada soconaa. ilaahaygeena waa hal, nabigeena waa Maxamed sallallahu calayhi wasalam. waxaa idinka sheegayaa wiilkaas walaalkay ah, ani cafisaa iga tahay. xalay markaan agtaada kasoo tegayayba cafisaad iga ahayd, sababtoo ah anigaaba ku cafiyeyba, aniga waan ku cafiyey. sababtoo ah calool ku qaad ma garanayo, qofku wuxuu igu dhaho nacam un baan dhahay, waana kasoo tagayaa. walaalka Ilaahay ha kusoo hadiyeeyo, qalbigaagana Ilaahay ha soo hadiyeeyo, cusrinimadana qalbigaada ku jiro Ilaahay ha ka madoobeeyo. magaca shalay maanta aad yeelatay anina waan yeelanayaa insha Allah. midda kale dadka caanka ah waxaan inta fartiin kale ugu diraya, dadka caanka ah shalay Ilaahay waa caan idinka dhigay, shalayna anigoo kale aad aheedeen, ama dadka kale naga sii banaanka ah oo social media aan isticmaalin camal baad aheyd. caannimada Ilaahay ayaa kuu suurtageliyey, Ilaahayna nacam kuu dhahay. waxaan ku leeyahay walaalkaaga ha yasin, walaalkaaga qaymo kaa mudan yahay. shalay asiga dartiisa magac ku yeelatay, asiga dartiisa sumcad ku yeelatay, asiga dartiisa like iyo subscribe iyo commentiga iyo shareka kuu share gareeyay ayaa magac ku yeelatay. walaalkaa waa walaalkaa, qof bini aadana muslim ahna weliga isla weynaha ka qaadin, isla weynada Ilaahay raali ka maahan. waxaan kaloo halkan kasii hadlayaa insha Allahu tacaala ha la isku caloolfiyoobaado, sida aniga xalay igu dhacdo kale. qofka markay ku dhacdaysan uqdad qaadin, ninkan dhiirigelin unbuu kuu sameeyey. dhiirigelintana waxa weeyaan bulshada waa inaa la wadaagtaa. ninkaa xumaatadaasoo ii geysta waana cafiyey, walaalkii cafisaa iga tahay. youtube-keygana wax walba kuu saaran yahay waan ku ogahay. waa mahadsan tahay. bulshadeeda iyo walaalaheyga iyo tolkeyga inaan la wadaago, iyo dadkan ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay. aniga qabiil ma ihi, qabiilna uma soo jeedo. run ahaantii waxaan ka dhashay Soomaali Maxamed, waxaan ka dhashay ummadda Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, salawaatullaahi wasalaamu calayh. dhammaanteennana waan u simannahay insha Allahu tacaala. waxaa idin leeyahay ciilka laysma bare, waa lagugu abuuraa. marka idinka gacantiina wax walba ku jiraa. waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan, maalin axad ah wanaagsan. insha Allah jannadaa idin wada rajeynayaa. naxariis iyo kalgacayl ha la isku caloolfiyoobaado. khaasatan beelweyntaan ka dhashay beesha jareer weyne. waxaa la dhahay inaan annaga horumar gaarin, waxaa la dhahay inaan magac isku yeelin, waxaa la dhahay inaan sumcadaan isku yeelin. muhiimadan waxaa koosgariyaa la dhahay gacantaada waxa yar aad u saareyso, ama dal iyo dibad meel alla meesha rabtid joog, subscribe-ka gacantaada aad u saareyso lacag ma kaaga baxayso, laakiin walaalkaaga ku dhiirigelisay, aad magac ugu yeeshay, sumcad ku sii yeeshay. berina asina qof kaloo sii caawinaya, step by step weeyaan jaranjartaan, waana la wada gaarayaa. maanta haddaan caan noqday idinka caan idinku noqday, haddaan fanaan ahayna fanaannimada haddaan caan ka helayana caankii baan noqonayaa. maalintuu Ilaahay iigu talagalay ayaan meel gaarayaa. dad baa waxay ku leeyihiin videogaaga qaad YouTube kala geey sidaa caan ugu soo noqoto. kaaga waa inaad ku silacdaa, aad ku sabartaa, aad horumar ku suubisaa, aad magac ku yeelataa. kaaga unbaa meel ku geyn karo. waana idin salaamayaa Soomaali Maxamed, one love waa idin leeyahay. jareer iyo jilaacba waan wada jeclaa si qalbiyan ah. waxaan idin leeyahay labadeeda garbood weeyaan. garabkaana rida haddaan dha kan baa kor u taagmay, dhinaca u soconaya, laakiin markaa saan ahay maasha Allah ilaahayna waa ii dhammaystiray. jareer iyo jilaac waa ila dhasheen, walaalahay tihiin, waa idin jeclahay. waxaan leeyahay gacantiina mustaqbalka iyo yacni horumarka lagu gaaraa.
like-ta ii saara, commentiga, share-ka, subscribe-ka. ninka walaalkay waxaad ka dhehaysiin waxa waaye idinka idin taala waa idin salaama Soomaali Maxamedey.